inaad product market fit heshid ama productka saxda suuqa saxda aad u heshid oo waxa ugu muhiimsan ay tahay inaad samaysid ganacsigaas e-commerce buu noqon karayaa, dropshipping buu noqon karayaa, Amazon seller buu noqon karayaa, dukaanada wadankeena wax ku iibiyay noqon karaysaa. saaxiibayaal muddadii 5 bilood ee ugu dambeysay hadda waxaan ku sugnaa China. waxaan ka qayb galay carwo ganacsiyeedka ugu weyn adduunka oo la yiraahdo Canton Fair. waxaan la fariistay suppliers aad u badan oo jawaanib kala duwan wax ka iibinaya, kuwa boorsooyinka iibinaya, kuwa dhismayaasha wax ka iibinaya, kuwa furnitures ka iibinaya. over 30,000 ganacsi ayaa isugu yimid meesha iyo warshadood. waxyaabo badan baan Allah mas'aan ka eegay. insha Allah hadii la yiraahdo muuqaalkeena waxaan ku dul istaagi doonaa 5 talaabo oo raaci kartid aad ku heli karaysid winning product online store-kaaga aad ugu heli karaysid ama Shopify. marka ugu horeysa waxaan isweydiinaynaa intaanad winning product ama product aadan raadin marka ugu horeysaba waa inaad samaysaa market research. waa inaad marketka baadha waa iyo audience-kaagu xagee bay Allah mas'aan ku nool yihiin, da'doodu waa imisa, income-koogu intee, aqoontoodu intee taagan tahay, ogaanshaha og tahay qofka product ka iibsanayay waa waxay ku siinaysaa insight badan. so marka inaad garanaysid who is your market. maalin dhaweyd sanadkii hore I think bishii 6 sanadkii hore June 12 something bay London baan joogay. waxaan ka qayb galay training marketing ku saabsan. marka mid kamid ah dadkii tababarayay dadka training ka bixinayay ayaa wuxuu yiri marka if you talking everybody you are talking nobody. marka wuxuu soo qaatay Allah musta'an ninkan Kenyaanka ee scoorka jabiyay orodada badan jabiyay ayuu soo qaatay. so Chicago orodkii uu koodayay I think 2022 mise 2023 bay ahayd. Nike kabay u sameeyeen, kabahaas ay u sameeyeen waxay ku bixiyeen millions and millions of dollars and years of research siday u sameyn lahayn. kabi waa la mamnuucay, hadda lama ogolay in lagu ordo. deeta markii uu kabaha qaatay square kastuu jabiyay. marka Nike markay sameeyeen kabahaas millions of dollars research ay ku bixiyeen ay sameeyeen productkii lama yiraadin dad caadi ah sidoo kale iyo sidaadoo kale. marka wuxuu yiri Allah musta'an inaad qofka og tahay macmiilka saxda productka ku saxday oo waxa ugu muhiimsan ay tahay Allah musta'an and it changed my entire life. oo wax kelmaddaas maalinku yiri wax badan buu xii. arrin labaad buu yiri hadana wuxuu yiri meesha waxa fadhiyay ilaa 200 qof fadhiyay. wuxuu yiri imse qof baa wata gaariga Ford leeda marka dhowr qof baa qaanta sare u taagay. so marka audience-ko dhan hadii aad la hadashid imse qof baa gaari wata dad tiraahdo dadka dhan baa wada gaari wata. marka you need to know who's your audience. waa ayo qofka aad rabtid inaad wax ka iibisid, genderkiisa waa noocee, daadiisa waa noocee, income-kiisa waa noocee, aqoontiisa waa noocee. China xataa laftigeega marka supplier-ka la kulmisid market-keed supply gareysaan ayaad koranaysaa. marka marketka US ay supply gareynayaan ama marketka Europe markay supply gareynayaan iyo marketka Africa markay supply gareynayaan waa laba kala duwan. productyada xagga la geenay iyo productyada localka xataa China gudihiisa lagu isticmaalo isku mid maaha. so marka fahankaad u leedahay marketka ee baadhi waxay ku siinaysaa inaad fahantid productkan yuu sax ku yahay ayaa iibsanay. so marka ugu horeysa waa inaad eegtaa marketka markaad baadhaysid waa inaad proof and demand waa inaad samaysaa productkan miyuu iibsamaya. Allah musta'an dadku intooda badan waxay u malaynayaan product inaad Shopify store samaysid product kulliisa and then wixii iska shaqeynay. laakiin finding winning product is the most important thing. Allah musta'an ugu muhiimsan in ganacsi in wax kasta noloshaada sameynaysid. marka ugu horeysa waa inaad market proof demand waa inaad eegtaa. demand sidee baad ku eegaysaa? Allah musta'an waa inaad tagtaa markaad baadhaysid Allah musta'an laba qaab ayaa dropshipping lagu soo helaa. ama free method baad isticmaalaysaa oo inteeda badan Allah musta'an marka social media isticmaalaysid xayisiisya ku soo gala. xayisiisyada productkii ka iibinayaan TikTok shop Allah musta'an dadka wax iibinaya live ku dhex jira every day dadku wax bay iibinayaan. so marka isweydii product attention-kaaga qabta taasta Allah musta'an oo inaad eegtaa Allah musta'an. marka free method sidoo ku eegi karaysaa waxaan tagaynaa TikTok. marka hashtag-ya lagu eega jirta Allah musta'an oo TikTok dhexdiisa Allah musta'an lagaga eego. TikTok made me buy it oo eegi karaysaa Allah musta'an. TikTok made me buy it waa wada kamid ah oo Allah musta'an free method ku eegi karaysid. so marka product-kan ka deeg. so product-gaas hadda wuxuu xalinayaa Allah musta'an eygaas Allah musta'an ay wax siinaysa markaad eygaaga dibadda ula baxid wax weyn uma qaadi karaysid. marka eygu haraadaya bileeyin deeta markuu haraado biyo samad ugu shubeysaa. so productkaas mushkiladu xalinayo iyo cidda iibsanaysa waa cidda ayda haysta. cid kasta ma iibsanaysa productkaas ama bisadaha haysata ama xayawaanada kale haysata. productkan kale eeg I think video waxa lagu sameeyay ayaan malaynaa. productkan timaha rifrifan ayuu sidaa ka dhigayaa wiilay. so Allah musta'an
isna mushkiladu xalinaya waa taas so ama product ana isna mushkiladu xalinaya dadka raba inay barafka samaystaan saas bay ku samaysan karayaan so there is a millions and billions and billions of products baa jirta oo every single day waxay leeyihiin allah musta'an taas waxay leeyihiin marka so many products baa jirta millions and millions TikTok shop ka tagi kartaa marka TikTok ka tagaysaa TikTok maybe buy it baad isticmaali kartaa or waxaad isticmaali kartaa Amazon finds allah musta'an productiya ay hashtag isticmaalayaan allah musta'an dadka Amazon affiliate ka sameynaya ama Amazon ka caadiga sameynaya so waxa product aad arkaysid allah musta'an so many products baa jirta aad u badan oo allah musta'an isticmaali karaysid ama aad soo qaadan karaysid arrinka kale isna sameyn karaysid waxa weeyaan isna framework ku heli kartid inaad carwo ganacsiyadooda kale ka qayb gashid I think content fair ko kale insha Allah hadii la yiraahdo hadad ka qayb gali kartid waa meelaha productyada cusub ee inteeda badan hadda China intaan imiday productyadan China ku arkayo Mareykanka intaan joogay kuma arkayn ama Europe ama Africa iyo Kenya wadankeeni inteeda badan kuma arkayn marka China waxa jirta so many products ay soo saaraan so you see imika meeshan aan deganahay hadii uu cuntaan dalbado cuntadaas ii man sallam saan robot ba keenay xagan ii soo dhigaya robotkaas Mareykanka ma jiro Europe kama jiro hadii la qaado xagaas la geeyo inkastoo uu yahay allah musta'an borsooyin baa jira allah musta'an badan nacam so many products baa jirta oo allah musta'an iibsameeya so markaas allah musta'an taas baad ku yeelan kartaa arrinka kale isna sameyn karaysid waxa weeyaan inaad Facebook Arts Library ga eegtid allah musta'an linkiyada hoos baan wada dhigi doonaa Arts Library ga markaad tagtid waxaad dooranaysaa allah musta'an all baad dooranaysaa ama United States baad oran kartaa allah musta'an Mareykanka dooran kartaa maadaama meesha ugu badan ee dropshipping laga iibiyo tahay USA and then category older and then waxaad ku qoraysaa allah musta'an let we say travel bag and then travel bag markaad raadid all wuxuu ku soo wada saaraya allah musta'an wixii travel bag xaysiis la soo waxay so Facebook Arts Library waxa la yiraahdaa xaysiis kasto oo Facebook dhex mara lama ogola allah musta'an in laga delete karo waan xogka ku jira public noqda so marka qof kasto xaysiis ran gareynaya waa arkaya imka kanoo kale okay so kan waa hal niche kaliya waxa jirta niche badan allah musta'an skin care ko kale la duwisay skin care wixii xiriiraya allah musta'an iyaguna millions budget so product markay noqoto millions and millions and millions and millions and millions niche budget allah musta'an oo Hi guys, I'm Justine. I have marked severe وكو الله مستعان سكين كيركي so skin care kaas baad ka eegi kartaa dharkaad eegi kartaa Allah musta'an let we say imika maalmahan China waxaan ku arkay productan hadad dropshipping ku bilowday aad buu fiicnaan lahaa productan maxay ahayd productan Allah musta'an wuxuu ilaalinayaa kula ayuu ka ilaalinaya qofka so intooda badan Allah musta'an hadda China ku arkay marka cadceedu jirto kala qaboob ku dhigaya qofkii so productan baa kamid ah millions de maxaa any product Allah musta'an aad productya aad u badan baa jirta oo aad ku heli karaysid marka inaad eegtid productkan miyaa la iibsanayaa suuq miyuu leeyahay miyay scale gareynayaan productkan Allah musta'an waa inaad marka hore marketka proof garaysid oo Allah musta'an market proofing ku samaysid arrinka labaad ku samayn karaysid waa inaad product ku soo heli kartid waa inaad paid method isticmaashid paid marka tuulo kala duwan baa la isticmaalaa kan fataala Allah musta'an waa isticmaali karaysaa oo hadday noqoto TikTok shopka hadday noqoto allah musta'an waxyaabo badan buu leeyahay tuulashada isticmaali kartid allah musta'an kan baa kamid ah kataala so waxay ku siinaysaa productyada ugu iibka nishash kala duwan oo kan productyada lagu iibsiga badan yahay allah musta'an xogaa lacag ka qaadayaan I think inay free trial bay leeyihiin insha Allah linkiyada hoosta inii dhigi doona kanoo kale kamid ah allah musta'an electric bike kan baa kamid ah maadaama hadda dhacay dagaal ay socdaan oo shidaalkii u qaaliyoobay electric bike waxaan ku dhex arkayba content fairkii baan ku dhex arkay so waa kun Allah musta'an productyada ugu iibsiga badan waxbay ka xadidayaan waxna ku siinayaan kan baad isticmaali kartaa
trend trackers baa isticmaali kartaa mania kuwa la yidhahda iyaguna jira way badan yihiin allah mustacaan tuulada iyaguna wax lagu baadho oo aad wax ku baadhi karaysid product winning product aad ka dhexi kartid soo kale waxaad tegi kartaa Amazon waxay leeyihiin so each niche waxaa jirta allah mustacaan Google ka aad timaadid oo ku qortid bestseller oo kun bestseller wixii ugu iibsiga badnaa dharka oo kale markaad noqoto kunba ugu iibsiga badan kun bestsellerkii kan baa ugu iibsi badan aad badan bay hayaan waxaa ka mid ah allah mustacaan bestsellerka hadday noqoto cuntada kitchenka iyo diningka hadday noqoto kunba ugu iib badan iyaguna waddo kalood ku heli kartid allah mustacaan productyada sida fiican u iibsameeyay marka product iibin isa isku dayin allah mustacaan ka invent the wheel inaad samaysidood wixiiba dee hoos kasoo bilowdidood wixiiba adigu wada samaysid isku day allah mustacaan inaad eegtid waxa market dhammaanka leh imika kanoo kale si fiican buu iibsamayaa kan iibsamayaa kan saliid waa lagu buufinaya allah mustacaan so marka so many products baa jirta oo allah mustacaan aad ka heli kartid baa jirta Amazon-kana waa mid ka mid ah wadooyinka isna ku heli kartid wadooyinka kale ku heli kartid iyadna waxaa ka mid ah allah mustacaan inaad isticmaashid AliExpress so iyaguna waxay bestseller meesha ku soo dhigayaan so iyadna waa in a way aad ku heli kartid markaad market research samaynaysid waa koon productyada bestsellerka sida fiican loo iibsaday shandadan baa ka mid ah boorsadan baa ka mid ah kan baa ka mid ah so there is so many products allah mustacaan oo ku dhex jira each niche ku dhex jira so markaad baadhisid allah mustacaan isku day markaa inaad qaadatid waqti oo deegtid allah mustacaan haddii aad ku nooshahay Mareykanka Canada Sweden Ingiriiska Germany Belgium Holland iyo wadamada kale ee qaaradda Yurub ama Australia aad ku nooshahay oo aad ka fikiraysay inaad online business samaysid online business kaasoo ah inaad physical product samaysid inaad baratid marketingka inaad productyo soo iibsatid oo China ka soo iibsatid inaad online business dhistid oo iibsid sida productyada kan oo kale ama productyada kale tirada badan leh ee wadankan China yaala aad rabtid inaad bilowdid insha Allah hadii la helaado waxaan qaadan doonaa tiro yar oo kooban oo aan ku bari doono sidee ayaa winning product loo soo helaa wadankan China looga soo helaa waxaan ku soo heli doonaa supplierkii aniga hadda xaadir ahaan waxaan ku suganahay China waxaan dhisaynaa team iyo system iyo fulfillment center oo ku yaala wadankan China waxaan kula soo heli doonaa supplierkii productyadaadii instead aad ka qaadan lahayd oo gurigaaga degan lahayd ama dukaanaad u samaysan lahayd productkaagii fulfillment baa lagu sameynaya haddaad doonaysid inaanad product iibsan oo product kale iibisid oo dilaal noqotid waxaan ku siin doonaa productyadii aad iibin lahayd ee dilaalkaad ka noqon lahayd waxaan sidoo kale ku siin doonaa sidii aad online store u dhisi lahayd online storekaagii baan kula dhisi doonaa waxaan ku siin doonaa course marketingka iyo Facebooka iyo TikToka sidee baa loo rangareeyaa insha Allah hadii la helaado waxaan qaadan doonaa tiro yar oo kooban oo aan ku tusi doono sidii aad online business ay u dhisi lahayd hadday ay riyadaadu ahayd inaad product iibisid oo adduunka Allah musta'aan maanta uma baahnid inaad adigu product yeelatid waxaad iibin kartaa product dad kale leeyihiin oo la hubo qualitygiisii oo supplierkiisii la soo hubiyey oo xilligu gaarayay shippingkiisii la soo hubiyey oo wax kasto aad xagan China oo uga baahnayd aanu ka soo hubin insha Allah dileera trayer oo kooban oo dada ayaan qaadan doonaa oo ku tusi doona sidii aad sanadkan aad u dhisi lahayd online e-commerce business ama dropshipping business in a right way aad ku dhisi lahayd insha Allah haddaad doonaysid inaad qayb ka noqotid link hoose ku soo dhufo la soo xiriir teamka tirada dadkan qaadan doona trayer oo kooban link hoose ku dhufo xagga ka soo diiwaan gali waa inoo xagga see you soon arinka kale isna maxaynu niri isna marka product research samaynaysid u baahantahay isna waxa weeyaan inaad eegtid product margin tele baa la saxan ku saar waa inuu healthy margin leeyahay margin wax la aan faa'iidada marka product aad iibsid marka product kan oo kale hadii aan rabo hadda inaan iibiyo bag kan oo kale Allah musta'aan u bag iigu taagan yahay let's say Allah musta'aan $9 something like that ama $10 iigu taagan yahay markan xagan China ka qaaday so products hadii aad siisid $20 oo kale idmin wad khasaartay waa shipping baa ku jira xaysiis baa ku jira hadii dukaanka alaabada dhigaysa Allah musta'aan dukaanka meesha dhigaysa Allah musta'aan baa ku jirta laakiin marka dropshipping samaynaysid uma baahna Allah musta'aan product inaad iibsatid product waad saskarayn kartaa laakiin aad eegtid product margin intee leeg buu leeyahay health margin xaysiiska wax kaaga baxay inaad eegtid wuxuu dhan Allah musta'aan inaad eegtid
arrinka kale isna Allah ta'ala inuu product leeyahay strong wow imika xayisiisidii aan dul istaagaynay Facebook Ads Library-ga aan dul istaagaynay travelka borsadii la xiriirisa borsadii yareed wuxuu dhan hal meel isku wada tagayeen borsadii halka meel wax isku wada tagayeen borsadan travel bagana wow factor buu leeyahay Allah ta'ala so wuxuu ku qaadayaa wax badan buu ku qaadayaa so product-kan hadda wow factor buu leeyahay marka product markaad iibinaysid waa inuu leeyahay wow factor shandada yar inta laagmiya waxa soo dhan qaadi karaysa marka xayisiiska sameynaysid marka angleska ka eegaysid waa in taas ku jirto Allah ta'ala iyadna waa in ku jirtaa marka maxaan niri labada method ku heli karaysaa inaad paid method samaysid oo toolashan Allah ta'ala ku tusaysa isticmaashid like mania Allah ta'ala product kale software kale color data ad isticmaalisid Allah ta'ala inaad free method isticmaashid Amazon iyo Google Trend iyo Allah ta'ala ad ka Facebook Ads Library-ga iyo Allah ta'ala doom scrolling hadda jacayl baad maanta inaad telefoonka dhex socotid markii hore si waxaad u dhex socotay Allah ta'ala baaran laakiin hadda oo soo shaqo tagaysa oo markaad shaqo tagaysid wixii product baad ka dhex baaraysaa so marka taasina waa mid kale oo ku heli kartid iyadna Allah ta'ala winning product markaad winning product rabtid inaad heshid marka hadday noqoto market research markaynu samaynayno intaynan Allah ta'ala wax kale oo dhan sameyn waa inaad isweydiisaa waa iyo macmiilkaygu ayaan wax ka iibinaya marka Nike maxay nirnay Nike markay sameynayeen product-kii may oran product-kan cid kasta sida anigoo kale iyo adigoo kale nagama iibin laakiin waxay la raadiyeen the right person qofkii saxda ah ee product-ka iibsan ku habboona ayay heleen arrinka labaad Allah ta'ala isweydiisid what problem exists maxaa jira problemka jira muxuu yahay imika qoladan shandada inta tusaysay ama product-ka cid samaysay anigu waan travel gareeyaa dhibaatada ugu weyn ee haysto marmarka qaarkood waxa kamid ah markaan baxaysid especially waliba in Europe iyo wadamada qaar lamida waxa dhacda in shandada aad qaadanaysid lagu yiraahdo inta hayba lagu ogoliyo so marka dhibaatadii baa keen wixii baa keen and then wixii mushkilad u raadiyay marka shandadu waa weyn oo qaadan lahayd inaad Allah ta'ala soo xidhid product-kan miyuu iibsamaya imika product-kan xayisiiskan ku arkayno wuxuuna tusayaa inay scale garaynayaan haddaan online store-kiga eegno intooda badan dropshipping ama dropshipping bay samaynayaan ama branded dropshipping bay sameeyeen oo way brand gareeyeen chini bag baa la dhahdaa Allah ta'ala waxay awoodda isugu geeyaan waa product-ka keliyata dropshipping markay noqoto Allah ta'ala waa inaad analyze garaysaa oo dhammaanka aad eegtaa Allah ta'ala marka demand validation waa inaad eegtaa customer psychology waa inaad eegtaa competitors-ka dadka iibinaya Allah ta'ala waa inaad eegtaa channels behavior waa inaad eegtaa so markaad product research samaynaysid qaabkaas baad samayn karaysaa arrinka kale isna Allah ta'ala product research ku samayn karaysid waa inaad Claude ama ChatGPT isticmaashid inteeda badan Allah ta'ala waa in isticmaalaa Claude iyo ChatGPT so hadda ChatGPT baan ayaa nimiday so prompt kan baad isticmaali kartaa prompt warqadahan oo dhan insha Allah PDF oo dhan hoos baan dhigi doonaa insha Allah ilaahay raado markaad isticmaalisid and then prompt kan isticmaal I'm blinded so ChatGPT waan hadda weydiinaya inay ideation Allah ta'ala la samayso midda kale markaad product isticmaashid insha Allah ilaahay raado waxaan dhigi doonaa Excel sheet aad ku dhex guran kartid aad markaad product baarisid Allah ta'ala ku dhex guran kartid so baashan ii sheegay Allah ta'ala hiidkii bay soo gelisay kulisan ka bay soo gelisay Allah ta'ala travel player smart audience Muslim travel student track Allah ta'ala iyadoo product kala iibin karaysid so Facebook kan ka dhaxeegana product kan soo it gets very very smart Allah ta'ala waa kuwan imika baalkan siisay dad baa hadda Four things that upgraded my prayer and elevated my faith. So start on dropshipping ama brand dropshipping sajada.com wax kale ma iibiyaan sajada kaliya niche-ka kaliya iibiyaan so kit bay u sameeyeen how much ay siinayaan let me check $50 bay siinayaan $60 meelaas so dadku iibsanayaan Allah ta'ala ariskooda intooda badan I think in American ran gareynayaan United States bay ran gareynayaan oo dropshipping so product-kan hadda waxay siinayaan $54 let me check AliExpress baan eegaynaa intuu ku yaala $5 ku yaala ugu badnaan $10 xataa shipping haddii la soo geeyo lacag fiican bay ka faa'iideen marka profit margin-ku
waa lacag aad u fiican marka qasab maaha inaad aduu product hadda yeelatid oo product intaad iibsatid aad gurigaaga dhigatid oo waxaysid waxaad samayn karaysaa Allah musta'an dropshipping so taas fadlan Allah musta'an samayn karaysaa so GPT-du marka iyadna wax badan bay ku waxayn karaysaa waqti badan bay ku soo koobi karaysaa high protein mealska kamid containerka gym beginnerska meal prepka containerka Allah musta'an waxyaabaha lagu diyaariyo marka AI-dan waad isticmaali kartaa AI-dan Allah musta'an waa iyadna wada kale waad ku samayn brainstorming Allah musta'an aad ku samayn karaysid so arrinka isna xiga ama chapterka saddexaad waxaan ku baranaynaa inaad numberskaaga ogaatid ganacsi marka aad samaynaysid inaad ogaatid productkan imse igu fadhiya shippingku imse ka qaadanaya xaysiiska imse ka qaadanaysa Allah musta'an adspend inaan macmiilkiiba ku helo xaysiis badal inaan rangareyn doontaa Facebook adsiyo waxaad rangareyn doontaa Allah musta'an xaysiiska aan rangareynayo in intellect Allah musta'an iga bixi doonta and then marka waxaas oo dhan isku wada geeyay profit kaniga muxuu igu imanayaa imsan ka faa'iidaya product kastoon iibiyo marka hadda e-commerce waxa weeyaan inuu fudaydiyo wixii oo dhan so ma baahin Allah musta'an productkii hadda xataa waxa insha Allah hadii la helato anagu loo soo wadnaa laakiin waxa jira third party fulfillment center waxa weeyaan uma baahin inaad productkaaga gurigaaga dhigatid ama wixii samaysid laakiin waxaad u baahan tahay inaad productkii wuxuu ku walaya xagan China and then markuu qofka gaayso ayaa toos loogu diraya and then you can scale like fast so technology maxay samaynaysaa automation wixii oo dhan automation aad u badan baa dhacay so marka waa in isweydiisaa imsuu product igu cost gareynaya $12 buu productkaas igu cost gareynaya imsan ku iibinaya Allah musta'an website-kayga imsan ku siinaya $9 gross profit per order waa $37 xaysiisku imsuu igu cost gareynaya $23 CPA-ga waxa la yidhahdaa inaan macmiil helo in intellect ilaa macmiilkaas iga iibsanayo arkaas xaysiiskaas imse igu cost gareynaysaa $23 hadduu kugu cost gareynayo net profit-kaaga waa imsa waa $14 haddii boqol lagu dhufto waa waxa weeyaan waa $1,400 oo profit ayada Allah musta'an faa'iido so Allah musta'an marka waa inaad eegtaa numberskaaga waa inaad eegtaa CTA-ga ruuska kelmadahan Allah musta'an waa kelmadaha loo soo qabsado marka product laga hadlayo inteena badan online laga hadlayo maadaama beginner tihiin ama waxaad cusub tihiin kelmadaha saas baa loo CTA Allah musta'an total imse igu cost gareynaysaa ruuska Allah musta'an ifan breakthrough imsan ku samaynaya oo faa'iidadeeda Allah musta'an ku samaynaya nacam minimum sell price Allah musta'an imsan noqonaya target market imsan noqonaya higher decision street nacam waxaas oo dhan Allah musta'an iyadina adeegtid qualification filter inaad samaysid markaad products waxaynaysid product and solve gareynaya real problem Allah musta'an or real design new problem samaynaya trick insecurity miyuu xalinaya qofka iibsanaya Allah musta'an decisionkiisu miyuu ku gaaraya in 30 second ka yar qiimihiisu iyo profitkan samaynayo miyuu yahay 50% iyo in ka badan miyuu leeyahay dhammaan ama suuq ka jira miyuu jiraa so waxaas oo dhan baa Allah musta'an waxaynaysaa and then product waa inaad eegtaa marketing insha Allah hadii la yiraahdo cashiro kale soo samayn doonaa markaad marketing samaynaysid waxaa jirta 5 stage oo marketing marka la samaynayo la sameeyo unaware baa jirta oo qofkii ma oga problemkaas inuu haysto oo qofka imika raba inuu shandad iibsado Allah musta'an ama shandadii aan hadda marka dhaweyd aan xaysiiskan ku soo qaadanay raba inuu iibsado qofka raba inuu shandadaas iibsado mushkiladaas ma oga inay mushkiladaas haysato laakiin markuu ogaado wuxuu imanaya Allah musta'an wuxuu imanaya problem aware new problem ka bahaystay problemkiiba ay magac buu sameynaya and the solution aware ayuu helaya product Allah musta'an solution buu noqonaya okay inaan alaabta shandada badan qaata ayaa jirtay maxaa sameeya shandadan okay somebody waxay karaysaa and the solution kii buu ogaanaya and then solution aware buu noqdo and then product aware buu noqonaya oo inuu product jiro risk iyo xeelad ka baxaya and then cost aware and then markuu qofku iibsanayo waa shanta awareness haddii uu qofku shanta awareness leeyahay there is no way ama sax iibku u dhacay marka marketing marka sameynaysid ana ka fikirtaa unaware product aware unaware problem aware solution aware product aware iyo most aware wayna Allah musta'an taas noqota marka nishirka kaas baa kamid ah insha Allah hadii la yiraahdo kelmadaha aan xagan Allah musta'an soo qaadanay cox waxa la yiraahdaa
product imso igu cost garaynaya from the supplier imso igu imanaya Allah subhanahu wa ta'ala iimanayo marginka waxa la yiraahdaa imsan ka faa'iidaya CPA waxa la yiraahdaa xaysiiskii inuu qof iga iibsado imso igu cost garaynaya CPP waxa la yiraahdaa same roost waxa la yiraahdaa dollar n on arts نعم اي حيثيس كتوقع قبل حيمسد كهلسة break even waxa la yiraahdaa faa'iidada $1 na ma macni inuu gaaro soo kalmadahan oo kalmadaha loo isticmaalo markay noqoto marketing iyo online loo isticmaalo insha Allah hadii la yiraahdo maanta muuqaalkeeni ku saabsanaa product research ku xagaas baynu kaga baxaynaa insha Allah hadii la yiraahdo muuqaal kale ayaynu soo samayn doonaa ku xiga sidee ayaa online store loo dhisaa adigoo isticmaalaya Allah subhanahu inagoo isticmaalna AI muuqaalo hore waxay dropshipping ka sameeyay oo dad badan daawadeen insha Allah hadii la yiraahdo waxaan samayn doonaa sidee ayaa online store loo dhisaa and data waxaan u gudbi doonaa sidee ayaa product Allah subhanahu loo scale karaya insha Allah hadii la yiraahdo aynu muuqaalka